عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك kala duwan soo dhawaada maanta waxaan ku suganahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu hadda u soconaa oo program ka soo diyaarinaynaa meel magac weyn ku leh oo taariikhiya oo guud ahaan shacabka Somaliland si weyn ay wada garanayaan dhinacayga waxa fadhiya Nuux oo kamid ah warbaahinta gobolka Togdheer oo aan wada safrayno ama wada socdaalayno goobtaasi inkasta aan doonayno in ka soo hordhaco goobta inii sheego hadana hadda waxaan ku sii soconaa goobta ugu horeyn waxaan doonaynaa weydiyo burcaynu ku sugannahay goobta bulshada intaan la wadaagin bal waxaad ka yara warantaa Burco iyo jawigeed maxaad faraxow horta marka hore aad iyo aad maasantahay oo kugu soo dhaweynaa Burco mar labaad gobolka Togdheer marka laga hadlayo waa gobol baaxad weyn leh waana magaalo madaxda labaad ee Somaliland waana halkii laga dhawaaqay Jamhuuriyadda Somaliland oo maxay tahay iminka aan taaganahay wadadii loo sii mari jirayba sida ogtahayba Somaliland waxa la geliyay xaalad laga hortagayo xanuunka coronavirus hadda xaaladdu way degan tahay gobolka Togdheer inkastoo ay hore u shaacisay gudida ka hortagga xanuunka COVID-19 in laga helo qof qaba xanuunka coronavirus haddana mas'uuliyiintu marba waxay sheegeen inuu qofkaasi caafimaad qabo kana bogsaday bulshada gobolka Togdheer way fiican tahay xaaladuna aad bay degan tahay ilaa iyo hadda wax kale oo dhibi kama jiraan sideeda kalena gobolka Togdheer u fiican yahay waayahay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo markaad iminka bulshada kale ama Burco aan arag ama kuwa ku soo socdaba ha noqdaane haddii aad u sharaxi lahayd maxaad ku qiyaasi lahayd cimilada magaalada horta maxaad faraxo marka la leeyahay gobolka Togdheer Togdheer waa doox dhex mara magaalada Burco waxaanu ku yaalaa bartamaha inta badan magaalada dhexdeedana uu maraa waanu kala qaybiyaayo wuxuu leeyahay laba bridge waaweyn oo baabuurta u kala talowdo xaafadaha magaalada Burco ma laha buuro maxay tahay mana ha banaan sida ay ogtahay magaalada Burco waxay caan ku tahay xoolaha oo lafdhabarta xoolaha nool ee Somaliland sidoo kale waxa ku taala siilada ugu weyn geeyiga ama geeska Afrika gobolka Togdheer oo lagu kala yimaado deegaano kala duwan Ethiopia haday noqoto Soomaaliya haday noqoto xoolaha laga keeno markaan taa ku leeyahay gobolka Togdheer dhan kale marka loo eego xagga wax soo saarka waxa muddo imka inuu la qaybsanayo goboladii kale oo maxay tahay bulshada gobolka Togdheer xoolihii ay isku wadayaan iyo maxay tahay wax soo saarkii marka cimiladiisu waa iska meel dhexaad oo qabow badan ma laha kuleyl badan ma laha oo ma laha baduma dhawo kuleyl ma laha buurana uma dhawo qabowna ma aha marka cimilada gobolka Togdheer san ku tilmaamila waayahay Nuux waxa kale dhinac kale aan ka weydiin lahaa marka laga hadlayo dhanka maciishada ama dhanka nolosha ee magaalada maxaad ka sheegi kartaa iyada laftarkeeda wallahi waa su'aal muhiim ah taagana waqtigeedii maadaama lagu jiro dunidii inay socodkii u istaagay maciishadu sideen meel Gurigii waqti hore waxa jirtay inay maciishadu kacsanayd oo doolarku la kacsanaa laakiin hadda waxay taagan tahay meel way xadidantay cuntadu mana jirto wax cabashooyin bulshada marka dhex marto ka soo baxaya xaqii qowtal daruurigii marka waxaan oran kareynaa hadda waxay taagan tahay halkii ay bulshadu maadaama ay danyar ay maxay tahay danyar aad u badan oo waliba kaaman fara badan ay magaalada duleedkeeda yaalaan haddana ma arkaysid wax ka cabanay maciishadii waa mahadsantahay Nuux waxaan doonayaa hadda inaan safar ugu sii socono goobtii aan doonayay inaan tagno oo aan doonayay inaan taariikhdeeda idin la wadaago markana soo raaca fadlan tagayna namariya
hadda waxaan soo gaarnay goobtan aanu hadda ku sugannahay oo ah goob taariikhiya oo guud ahaanba Somaliland ay si weyn u xusaan qof kasta oo Somalilandna uu garan og yahay ugu horeyn waa kan noox oo sidii ay muuqaaladii hore u daawanayseen aanu safarka soo wada galay horena aynu ku sheegay noox soo dhow hadda waxaan ku sugannahay goobtaynu soo soconay bal bulshada marka hore in yar waxaad u sharaxdaa goobtan iyo waxay tahay maxaad farxad saaxiib aad iyo aad u mahadsan tahay horta halkan aan imka taaganahay taariikhdeeda isma laha sida ay tahay markaan ku leeyahay taariikhdeeda iyo isma laha sida ay tahay waa qayb kasta oo Soomaali ah marka la soo hadal qaado Somaliland magaca Somaliland ay ku soo dhacaan dhigaha bulshada markiiba waxa isku soo dhacaya goobtii laga dhawaaqay Somaliland 1998 May halkan aynu taaganahay ayaa calanka Jamhuuriyadda Somaliland tawxiid ku qoryahay laga sugay waa halkii la lahaa ka nasiib ka nasaar sareeyo munasqaanba ka nasiib ka nasaar marka maantana waad aragtaa oo soo wada maray waa halka ay maxay tahay ooyda bisadaha iyo dameerada iyo xayawaanka kala duwan waana goobta kharaabada aad arkayso bulshada iyo Somaliland iska daayay bulshada kale u soo daawasho tagtay meeshan door biday inay maxay tahay timaado marka waxay arkaysaa kharaabada jaban hadii bas aanay la dayactirin sidoo kale maxaa farax waxa jirtay xukuumadan hadda talada haysa xisbiga kulmiye ka dhalatay dhowr jeer oo kala duwan oo ay bulshada gobolka Togdheer iyo Somaliland u ballan qaaday in la dhisayo oo loo 3 jeer oo kala duwan la dhagax dhigay dhagax dhigaasi meel ku dambeeyay hatta alaan lama hayo oo ismihii wad aragtaa barasabkii hore qabo ayaa u mariyay geedka waxaan ka saaray dad dayar ahaa oo halkan hooy ka dhigan jiray ama gabaad maxay si ay naftooda ugu maareeyaan meeshana ilaalin jiray oo sidan uma sii dayacnaan oo sidan uma sii burbursanayn geedkii halka inta markuu mariyay baa la joojiyay ma jirto wax kale oo dhismo ah oo dib looga sii qaaday laba jeer oo ka dambeeyay waxa la siiyay shirkad kamid ah shirkadaha gobolka Togdheer iyo Somaliland oo dhisaysa dayactirisay oo maxay inay dayactirto oo meeshan dib habar soo bisi ma suura gelin walo aanina ogin hada shirkadda ku baaqatay xukuumadda wali furay go'aamadii ay bulshada u soo bandhigay marka laga hadlayo taariikhda goobaha qadiimiga waxay ka mid tahay meelaha la tixgeliyo gaar ahaan marka laga hadlayo dunida kale goobaha la qiimeeyo waxa ka mid ah meelaha taariikhiga qadiimiga dalkaasi ama wadankaasi uu leeyahay oo waxa xusid mudan in Ethiopia oo Somaliland inta badan ay jaariyihiin ay lacag aad u fara badan ku soo iibsatay madaxaf dalkaasi lahaa oo muddo badan ka maqnaa marka waxaan doonayaa inuu xusoo noqday iyadoo dunidu siday u qiimeyso goobahooda taariikhiga aad og tahay lacagaha lagu bixiyo iyo sida loo qiimeeyo iyo sida loo muunadeeyo iyo sida waliba goobaha dalxiiska looga mid noqday loogu daro in dalxiisayaasha dadku lacag lagaga qaado wali wadanka dhaqaale lagaga sameeyo maxaad is leedahay goobtan Somaliland waliba qiimaha u leh way hortaagan yihiin in la sameeyo oo la dhameystiro la dayac maxamed aad u mahadsan tahay kulli Somaliland iyo gobolka Togdheer oo sidii dayactirka goobtan maxamed aan ku soo noqday